السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري سود وهذا وبركست يامون هبين كان عاوة وحينو كجهل لدونا لبضي يكون يأفري لبعتنكي وحيابا دعوين بدن أي دونك كدعي وولي بمركاسي سامين غير كود أي كور بين دونك لبضي يكون يأفري لبعتنكا دعوين كدعي هدان قار كميد السوق بنو markaasi ugu horeysa markaasi doorashadii Mareykanka ka dhacday Donald Trump ayaa hadda ka hor wuxuu sheegay inuu ku guuleysan doono doorashada 2024 sida ay ahayd markaasi uu ku guuleystay oo weyn wada ogeyn But it's a political victory that our country is sidoo kale doorasho ka dhacday Somaliland ayaa jirtay oo markaasi doorashadaasi si nabad ah ay ugu dhacday Somaliland doorashadani oo hadii Afrika oo dhan la eego ayna ka dhicin Somaliland mooyaan doorashadaasi si nabad ah ayay ugu qabsoontay si qurux badan way ugu dhamaatay halkan korneeladii askariga ugu weynaa madaxaadka handaraabka uu tagay waxa kale oo jirta ninka la yiraahdo Hashim markaasi hooyo iyo labadeedii hablood Nairobi ku gowracay markaasi oo ku qashay sida ay dadku sheegaan waa la hayaa isaga maxkamadu markaasi ku jira maxkamadiiba u socotay waqti xaadirkan isagoo markaasi cadaystay oo sheegay markaasi inuu markaasi hooyada iyo labadeedii gabdhoodba u gowracay Hashim oo markaasi ugu dambeyn gabadh deeqo la dhaho iyadoo markaasi gurigiisa ugu tagtay ama halkii uu joogay uu ku gowracay dabadeedna uu bac ku soo qaaday ayaa jira hilibkeedii dhacdooyinka aadka u xanuunka badan ayuu ka mid yahay waxa jirto kale gabadh markaasi la gubay oo loo oran jiray Allah u naxariistee Luul Cabdicasiis oo odageedu gubay markaasi maxkamadda markii la joogay waxyaabaha saameynta leh ninka la yiraahdo Shamuuri ayaa isaguna ku soo caan baxay bismillaah insha Allah ma sha Allah ayuu isaguna ku soo caan baxay magaca ما شاء الله xageed degantaa إن شاء الله xagee ka degantaa ما شاء الله waxaad ka marag furaysaa sida aad sheegto waxaad aragtay oo indhaha ku aragtay dhacdooyinka aadka wala yaabka leh ayay ka mid ahay taasina sidoo kale waxa jira nin iska dhigayay naag oo isagana la qabtay ninkaasi naagta iska dhigaya social media aad iyo aad buu isaga laftirkiisu arrimihiisu ugu baahan aad iyo aad Suuriya ayaa iyadu markaasi xorriyad qaadatay markaasi cunaqabatayntii uu ku hayay Bashaar al-Asad ayay markaasi iska dulqaadeen waxaad arkaysaa iyagoo xabsiyada qaarkood markay ka soo baxayaan aad iyo aad ula yaaban oo dhacdadaas iyadoon cid islahayn qof xabsi ka soo baxaya uu Ilaahay markaasi la kulmiyay in ay soo baxaan saameyn aad u balaaran ayaa Syria markaasi ka dhacday oo markaasi qalbiyada dadka gilgishay sidoo kale waxaa jirta 2024 ninka la yiraahdo AJ family inay hooyo sheegatay oo ay tiri waa wiilkayga dabadeedna aad iyo aad xamaasad arrinkaasi uu yeeshay ilaahay subxaanahu wa ta'aala wiilkii ka maqan laha u sahlo halkaan ugu filina waan la raadinaynaa laakiin wiilkan kii ka maqan ma ayo damacan 2024 dhacdooyinka qaar ka mid ah hadaan soo qabto waxa jira wiil la yiraahdo Ayman Cali wiilkaasi waa wiil qurux badan ayuu ahaa marka ahaan oo inta badanka dadku ay ku tilmaamaan nin aad u qurux badan waxa dhacday ninka aadka u quruxda badan in markaasi uu xanuunsaday oo markaasi uu isbedelay jasad ahaan jasadkiisu aad iyo aad buu isku bedelay sida ay dadku sheegayaan ama la tilmaamo ishii dadka ku dhacday baa la yiraahdaa laakiin ninkaas uu xanuunsaday muuqaalkiisa hore
iyo muuqaalka dambe markaad isku eegto waa kala laba akhyaaray markaasi ninkaasi Ayman Cali waa uu geeriyooday Allah u naxariisto laakiin sida la tilmaamay waxaa la yidhi il baa ku dhacday dabadeedna xanuun buu ka qaaday aad iyo aad buu isku bedelay jirkiisu uunu geeriyooday waxaan leenahay Allah ya raxma waxaa jirtay bishii 12aad 25keedii 2024 in diyaarad Azerbaijan markaasi ay leedahay ay markaasi burburtay dabadeedna ruushku gantaal markaasi la beegsaday isagoo u malaynaya inay tahay markaasi daroonta diyaaradaha daroonta diyaaradaasi sida la tilmaamayo dad badan ayaa ku geeriyooday qaarna way ku dhaawacmeen sidoo kale waxa ka badbaaday oday markaasi qabsaday tawxiidka rabbi oo markaasi lahaa Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar isagoo leh oo markaasi moobilkiisi gacanta ku hayay oo iskaga duubay diyaaradda dhexdeeda haddana markuu diyaaradaasi ay burburtay ay dhulka ku soo dhacday dadkii iyo in badan ba khasaare gaadhay ee dhinac ka gubatay haddana isagoo moobilkiisi gacanta moobilkiisi wato haddana sidii uun iskaga duubaya waa wax lala yaabo qofka Ilaahay markaasi badbaadinayo isagoo unba markaasi Ilaahay ka badbaadiya halka uu markaasi ugu talagalay inuu waxba ku noqonin qofkii Ilaahay markaasi badbaadinayo masiibooyin badan buu ka dhaxbaxa Allahu akbar. diyaarado kale ayaa iyagu jira sida South Korea diyaarado badan ayaa markaasi bishan gudaheeda iyo bishan dhamaadkeediiba la tilmaamaya inay markaasi khasaare badan gaadhay markaasi dad badan ay ku waxyeeloobeen dad badan ay ku dhinteen inta dhimatayna Allah u naxariisto inta islaamka ah inta markaasi dhaawacanna Ilaahay ha u booga dhagayo ayaan leenahay